Dowladda oo gubtay qaad si qarsoodi ah loo soo gelinayay magaalada Muqdisho. Halkan waa Qowl Media TV. Wasaaradda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta gubtay jaad la isku dayay in si qarsoodi ah loo soo geliyo dalka. Qaadka la gubay ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wasiirka Gaadiidka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay gubeen qaad si khaldan loo soo geliyay dalka. Wasiirka ayaa xusay in qaadkan la doonayo in lagu soo dhaqaqariyo fasaxii duulimaadka labada maalin ahaa ee loo sameeyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xanibnaa qaar ka mid ah garoomada caalamka. Horey ayay dowladda federaalka Soomaaliya u xaqiijisay in fasaxa labada maalin ah aan la ogolayn in la soo dejiyo xamuul oo aan ahayn raashin iyo daawo, iyadoo sidoo kalena xustay in la karantiili doono muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ka imaanaya dalalka uu saameeyay caabuqa coronavirus. Qaadka maanta lagu gubay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa dowladdu sheegin halka laga keenay. Ha yeeshee wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laga keenay dalka Itoobiya.